nebiyada reer bani israa'iil nebiga ugu cajiibka badnaa hogaamiyena ahaa waa sulaymaan calayhi salaam. waxa uu alle sii boqortinimo bani aadamka intiisa kale boqortinimada uusan la wadaagi karin. waxaa nebi sulaymaan calayhi salaam dhalay daa'uud calayhi salaam. waa laba nebi oo isdhashay. nebi daa'uud calayhi salaam markii uu dhintay boqortinimadiisu waxaa dhaxlay wiilkiisii sulaymaan calayhi salaam. geerida aabbihiisii kadibna dadka oo dhan inta uu hal meel ku wada kulmi ayaa waxa uu dhahay: yaa ayuhannaasu cullimnaa mantiqa atayri wa uutiinaa min kulli shayin inna haadaa lahuwa alfadlu mubiin. intaa kadib nebi sulaymaan calayhi salaam sida aabbihiisii oo kale dadka cadaalad ayuu ku xukumayey. waxa uuna ahaa boqor aad u wanaagsan oo dadka dhegaysta. dhismihii ugu weynaa ee baytulmaqdis inta uu galay ayaa nebi sulaymaan waxuu alle ka baryay 3 shay in uu siiyo. waxa uuna dhahay: ilaahayow waxaad isiisaa boqortinimo horaanteedii iyo gadaasheedaba qof dambe nasiib uusan u yeelan doonin. sidoo kale ilaahayow iga dhig boqor cadaalad ah oo xilkiisii sida alle uu raali ka yahay u gutaa. sidoo kalena ilaahayow dhismahani baytulmaqdis qofkii soo booqdaa sida maalintii uu dhashtay oo kale ka dhig dembiyadiisii qof la cafiyey oo kale. waxa uu nebi maxamed nabadgelin naxariis korkiisa ahaatee uu inoo sheegay labada duco ee ugu horaysa in nebi sulaymaan alle uu ka aqbalay. boqortinimadii sulaymaan calayhi salaam qof dhaxlay ama dhaxli doonana adduunka ma uu jiri doono. sidoo kalena waxa uu ahaa boqor cadaalad dadka ku xukuma, balse alle kama uusan aqbalin in beydka qofkii soo booqda dembigiisii oo dhan in la tirtiro. in uu alle ka aqbalana waan u rajaynayaa ayuu dhahay nebi maxamed nabadgelin naxariis korkiisa ahaatee. nebi sulaymaan taariikhda dunida waxa uu ahaa hogaamiye aad u weyn, sidoo kalena awooddiisu aad ay u weyn tahay. waxa uu alle u saqir oo ciidamo u ahaa dabeelaha, xayawaanada, shimbiraha, dadka, jiniyaasha. mid walbana amarka sulaymaan calayhi salaam ayuu hoos imaanayey. maamulkiisana jinsi walba waxa uu sii shaqo u gaar ah. shaqooyinka waaweyn ee dhibka badan sida dhisitaanka wadooyinka, qoditaanka dhagaxyada, isticmaalka biraha, badaha hoostoodii in wax laga soo saaro iyo waxyaabaha la midka ah waxaa loo dhiibay jiniyaasha. si wanaagsan ayayna jiniyaasha shaqadoodii u gudan jireen. shaqooyinka ganacsiga sida beerashada dhulka, wax soo saarka iyo hindisida xoolaha u baahan fakarka waxa uu dhiibay nebi sulaymaan bani aadamka. shaqooyinka u baahan waxqaadista, safarada iyo waardiyeynta waxa uu dhiibay sulaymaan calayhi salaam xayawaanada. shaqooyinka sirdoonka iyo ilaalada joogtada ahna waxa uu xilsaaray shimbiraha. si kooban nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaam bani aadamka, dabeelaha, jiniyaasha, xayawaanada sistem dowlad oo isaga hoos imaada ayuu ka sameeyey. waxa uuna qudus ka dhisay nebi sulaymaan calayhi salaam macbad aad u weyn. 3 sano ayuuna macbadkani sulaymaan jiniyaashu ay dhisayeen. sida aabbihiisii oo kale isaga oo boqor ahaa haddana alle waxa uu ku karaameeyey nebinimo. inkastoo yahuudda iyo kirishtaanka sulaymaan calayhi salaam aysan u aqoonsaneen in nebi uu yahay, keliya waxay u arkaan boqor inuu yahay. balse sida suuradda ancaam aayadda 84 nebiyada alle marka uu ka waramay nebi sulaymaan calayhi salaamna magiciisii nebiyada ayuu ku soo dhex daray. xilligii nebi sulaymaan calayhi salaam waxaa la dhisay wadooyin badan. dhismooyin aad u badan ayaa magaalada laga wada dhisay. sidoo kalena waxaa la dhisay kanaalo, buundooyin, ceelal badan ayaa la qoday. dowladaha oo dhanna sulaymaan calayhi salaam aad ayay uga baqanayeen. ciidamada nebi sulaymaan ee sirdoonka mid ka mid a hudhudka ayaa waxa uu magaalo ku soo arkay qoom aad u badan oo dowlad ay u dhisan tahay, haddana ilaahay aanan aqoon. hudhudkii arrintani waqti badan ayay ku qaadatay inuu u kuungalo. nebi sulaymaan marka uu agtiisii ka waayay shimbirkani sida sharciga uu ahaa, ciidanka qofkii amar la'aan ka baxaa haddii la soo qabto waxaa la dhadhansiin jiray ciqaabtan ugu daran. sidaasi darteeda hudhudka mar haddii uu baxay 3 waddo ayaa u furneed: in uu la imaado cudurdaar macquula sida shaqo loo baahnaa in uu ku maqnaa. haddii doonistiisii uu ku baxay fasax la'aanna ciqaabtan ugu daran ayuu mari doonaa. haddii uu been sheegana hudhudka gowrac ayaa sugaya.
xoogaha kadib sida kitaabka qur'aanka uu sheegayo shimbirkii hudhudka oo duulay ayaa nebi sulaymaan u yimid isaga oo dhahaya boqorow magaalada Saba ayaan waxaan kaaga keenay xog aadan ogeyn hadalka ayuu sii watay hudhudka waxaan ku soo arkay magaalada haweeney boqorad ah oo qoomkeedii iyo iyadaba qoraxda u sujuuda dadkaasi boqorow camalka ay samaynayaan shaydaan ayaa u qurxiyey alla may u sujuudaan allaha keliga ee samaawaadka iyo dhulka abuuray marka uu hadalkani dhammaystay hudhudkii si loo hubay in run uu sheegay iyo in kale nebi sulaymaan waxa uu ka qaaday hudhudkii imtixaan waxa uuna u dhiibay waraaqad kadibna waxa uu ku dhahay waraaqadani inta aad qaad haweeneyda boqorada ah agteedii ku tuur marka ay kala furtay ee waraaqada ay akhrisana waxa uu reakshankeedii noqon doona iisoo sheeg hudhudkii waxa uu qaaday waraaqad ay ku qoran tahay innahu min sulaymaana wa innahu bismillaahi raxmaani raxiim allaa tacluu calaya wa'tuunii muslimiin waa fariin aad u weyn oo tilmaamaysa in boqorada sida ugu dhaqsiyaha badan iyada oo aanan isweynaysiin in sulaymaan ay u imaado waa dowlad kale fariin u soo dirtay inta ay naxday ayay si degdeg ah marka ay maseejkani akhrisay waxa ay iclaamisay shir degdeg ah kadibna la taliyayaasheedii ayaa waxa ay ku dhahday sulaymaan ayaa waraaqadani ii soo diray inaga oo aanan isweynaysiin in fadhigiisii aan ugu tagno la taliyayaasheedii qaarkood inta ay fariintani ka xanaaqeen ayaa waxa ay dhaheen dowlad aad u weyn oo ciidan leh oo wax iska celin karta ayaan nahay sidaa qof inoola hadli kara ma uu jiro haddii aad ina amartay in dagaal aan ku qaadnana diyaar ayaan u nahay boqoradii waxa ay dhahday maya sidaa xal uma arko dadkaasi haddii magaalo ay ku soo duulaan sida wax walbay u burburinayaan dadka ugu sharafta badan ee magaca leh ee magaalada ku nool dad masaakiin ah oo dullaysan ayay ka dhigayaan sida ay wax walba u qaribayaan si caqli leh oo deganaan ku jirto waa inaan go'aan u gaarnaa kadibna waxa ay dhahday aniga waxaa ila wanaagsan in bilowgii aan ogaano sababta ninkani uu inoogu wacayo ka hor inta aanan u tegin ka hor si aan u ogaano ujeedkiisa waxaan u samaynaynaa hadiyad aad u weyn kadibna waxaan fiirinaynaa hadiyadda haddii uu qaadanayo ama in kale haddii hadiyadda uu qaato sulaymaan isaga oo wax walba haysta waxa ay ka dhigan tahay wax deeqaya in aysan jirin waa in marka go'aan aan ka gaarnaa hadiyaddii ayay u diyaariyeen kadibna marka sulaymaan loo keenay hadiyaddii waxa uu dhahay waxa uu alle maal isii ayaa iga badan oona iga qayr badan ma waxaad igu daraysaan wax kale hadda ha loo celiye hadiyaddeedii qofka hadiyadda u celinayana waxa uu ku dhahay sulaymaan waxaad ku dhahdaa marka aad u tagto ciidan xoogan oo marnaba aydan iska celin karin weliba idin dullaynaya ayaa idin imaanaya markaas ayaa nebi sulaymaan si uu wax u tusa darteeda waxa uu dhahay inta aysan muslimiin ka hor yaa carshigeedii ii keenaya jinni ka mid ah cirfiidka ayaa inta uu istaaga ayaa waxa uu dhahay aniga ayaa si dhaqsaah kugu keenaya ka hor inta aadan booskaadii shaqada ka kicin sidii ayuuna sameeyey jinnigii carshigii ayuuna soo qaaday boqoradii balqiis marka ay aragtay in qasrigeedii wax isdowmarsan yihiin inta ay la yaabtay ayay si dhaqsaah go'aan ku gaartay in sulaymaan ay u imaado marka ay sulaymaan u tagtayna waxaa lagu dhahay halkaasi fiiri kaasi ma carshigaagiibaa waxa ay dhahday haa waaba isaga kadibna boqoradii marka ay sulaymaan calayhisalaam ay u soo gashay waxa ay dhahday innii dalamtu nafsii wa aslamtu maca sulaymaana lilaahi rabbialcaalamiin إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين sida boqoradani balqiis oo kale nebi sulaymaan calayhi salaamna boqorada kale waxa ugu jiray diinta islaamka mucjizadiisana waxaa ka mid ah sida aayadaha qur'aankaba ay sheegayaan suuradda naml aayadda 16 waxa uu yaqaanay luuqadda shimbiraha xayawaanada xasharaadka jinka iyo wax waliba culimadu waxa ay sheegaan darajadani in nebi sulaymaan uu ku gaaray ismul acdamka waxa uu alla bara uu u furay albaabada ismul acdamka maalin maalmaha ka mid ah nebi sulaymaan calayhi salaam iyo qoomkiisii iyaga oo alle ka baryaya in roob uu u keeno waxa uu waddada kula kulmay quraanjo sidoo kale iyaduna roob alle ka baryaysa marka ay quraanjada aragtay sulaymaan calayhi salaam iyo qoomkiisii oo soo socda si aanan loogu istaagin darteeda waxay quraanjada kale ku dhahday
imaaday guryihiinii gala Sulaymaan iyo junuudiisii iyagoo aanan idin arkayn si aysan idinku istaagin. Nebi Sulaymaan hadalkani marka uu quraanjada ka maqlay aad ayuu u dhoola cadeeyey, waxa uuna ku xamdiyey nimcada iyo fadliga uu Alle siiyey. Jinniyaasha oo dhanna shaqadoodii si wanaagsan ayay u gudan jireen, qofkii isku dayay in amar la'aan uu baxana waa uu gubanayay. Nebi Sulaymaan calayhi salaam waxa uu amray in dhismo aad u weyn jinniyaasha ay dhisaan. Dhismahanina dhisitaankiisii qayb ka mid ah marka ay dhammaystireen welina aysan dhammaan, Nebi Sulaymaan waxa uu dareemay in uu dhiman rabo. kadibna goobtii dhismaha jinniyaasha ay ka shaqaynayeen inta uu imaaday ayaa meel sida baalkoonka oo kale inta uu istaagay ayaa halkaa waxa uu ku sameynayay tafakur, waxa uuna ku dhahay jinniyaashii halkani qofna yuusan igu soo dhowaanin, shaqadiinana iska qabsada. Nebi Sulaymaan calayhi salaam ushiisii ayuu ku tiirsanaa, tafakur ayuuna ku guda jiray. malagii Azraa'iil malakul mawdkii ayaa halkaa ugu yimid, isaga oo sidaa u tafakuraya oo ushiisii ku tiirsan ayaa malagii Azraa'iil malakul mawdka halkaa uu ugu yimid Nebi Sulaymaan calayhi salaam. isaga oo taagan ayuuna Nebi Sulaymaan calayhi salaam uu dhintay. jinniyaasha inuu dhintay Sulaymaan calayhi salaam war uma aysan hayn, waxa ay ku dhaqmeen amarkii ahaa halkan yaala igu soo dhowaan. usha ayuuna Nebi Sulaymaan calayhi salaam uu ku tiirsanaa heer uusan ka dhici karin. qofkii bannaanka ka arkaana waxaa la moodaa qof taagan oo bannaanka fiirinaya. sanado badan ayayna sida jinniyaasha dhismahani uga shaqaynayeen iyaga oo ku fakaraya in Sulaymaan uu taagan yahay, ilaa ugu dambeyn ushiisii qayb ka mid ah aboonka uu cunay. marka uu aboonka cunayna ushii Sulaymaan waa ay celin weysay, kadibna waa uu dhacay. markii uu dhacay uuna kici waayay Sulaymaan, jinniyaashu waxaa soo galay dareen, waxaana u caddaatay in Sulaymaan waa hore uu dhintay. Nebi Sulaymaan calayhi salaam marka uu dhintay, Yahuudda waxa ay bilaabeen in ay dhahaan ninkani waxa uu ahaa sixiroole, macquul ma aha boqortinimadani xad-dhaafka, waddada keliya ee uu ku samayn karo waa sixirka. jinniyaashana xilliga waxaa loo arkayay dad mustaqbalka wax kala socda. kitaabka qur'aanka kariimka marka uu ka hadlayay arrintani waxa uu dhahay jinniyaasha haddii qaybka waxay ka ogaan lahaayeen sannado badan shaqadani dhibka badan kuma aysan juri lahayn. goorta uu Sulaymaan dhintayba hore ayay shaqada uga bixi lahaayeen. Nebi Sulaymaan calayhi salaam shayaadiintu wixii ay akhrinaysay ee sixirka ahaa ma uusan raacin. maanta dadka illuminaatiga ayaa waxaa la sheegaa asalka ama ideolojiyadoodu in ay xiriir la leedahay boqortinimadii Sulaymaan. waxa ayna rumaysan yihiin macbadkii Sulaymaan iyo awoodihii Sulaymaan, in sixirka iyo kaashiga shaydaanka in mulkigii xilliga dib ay u soo cishan karaan, iyaga oo waddadani u malaya caabuditaanka shaydaanka in lagu gaari karo. si kastoo yahaataba Nebi Sulaymaan calayhi salaam waxa uu ahaa nebi cajiib ah.